shirgudoonkii xildhibaano waxaan isugu nimi waxa weeye wixii xaalkii kufsiga xeerka kufsiga oo maalmahan oo dhow hadalkiisu taagnaa waxa weeye xeerka wuxuu maray golaha wakiilada golaha guurtida wuxuuna ku dambeeyey madaxtooyada xeerkaasi uu dhaqan galay waxa ka soo baxay waxa weeye qodobo iyo qodobo culimadu aad ogeydeen ay yiraahdeen waxay ka hor imanaysaa shariicada islaamka dad islaamaynu nahay wixii shariicada islaamka hore iyo dastuurkeena xaraantimeeyey inuusan dhaqan gelin wixii qodob ahaa ee ka hor imanayay waxaan ku heshiinay culimada inay soo qoraan la isla eego wixii shariicada ka hor imanaya in laga bedelo oo laga saaro anagii culimada iyo guddi culimada guddiga wasaaradda awqaafta garyaqaanka guud guddida shuruucda ee golaha waxay isla eegayaan qodobada ka hor imanaya shariicada islaamka wixii shariicada islaamka ka hor imanayaana waa wax kama jiraan waa laga saaraya qodobada sharcigana golayaasha sabaysay dad islaamaynu nahay wixii dastuurku yahayna waa lagu dhaqmaya waanu ku dhaqmanaa marka waxaanu ku heshinay culimada inaanu isla eegno wixii shariicada islaamka ka hor imanaya aanu ka saarno oo isla saxno haddana waxaan kusoo u dhiibayaa aad iyo aadna waxaan uga mahadnaqanaa culimada dalka xaq bay leeyihiin wixii shariicada islaamka inay hortaagaan oo ay yiraahdaan waxaasi shariicada islaamka annaguna waxaa nagu waajiba culimada inaanu maqalno oo la tashano oo shuruucda la samaynayo intayn sharci noqon aanu kala tashano taana waanu ku heshiino markii aanu sharci samaynanaba wixii shariicada islaamka ka khuseeya culimada waanu kala tashanana albaabka iyaguna waa u furan yahay albaabka madaxweynuhuna waa u furan yahay dalkana wada tashi baa lagu wada shaqeeyaa sida la sheegayna ay isu celceliyeen arrimihii dhacay iyo siday u dhaceen islana fahmeen maanta inay dantu ku jirto maslaxaduna ku jirto siduu ilaahayna faray subxana wa taala in lagu dhaqmo mar walba culimmadana waan ugu mahadnaqaynaa ugu mahad celinaynaa sida ay runtii qiimaha badan naxariista leh ee iyaguna ay arrinkaas noola soo dhoweeyeen xukuumadduna sida ballanqaadkii madaxweyneba uu ahaa waxaa runtii ka go'an in ay mar walba iyo sixitaanka iyo toosinta iyo wadatashiga ummadda ay tixgeliso oo ay ku dhaqanto golaha wakiiladuna sidaa dee guddoomiyuhuba afkiisa ka sheegay waxa weeyaan golihii aynu samaysanay inuu arrimaheenna iyo danaheenna guud isagoo wakiilnaga ah inuu inoo habeeyo haddii taxeerar lagu dhaqo dhinac walba qoyska hadday tahay hadday dhaqaalaha tahay hadday tahay horumarka dalka tahay xaq bay u leeyihiin wixii iyagu ay inoo arkaan inuu waafaqsan yahay shareecadana ay inoo soo gudbiyaan mar walba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo markii laga hadlay xeerkan ee la yidhi waxyaabo shareecada khilaafsan baa ku jira ogolaaday in dib loo celiyo oo wixii shareecada khilaafsan laga saaro saddexaadka golaha wakiilada guddoomiyaha ku-xigeenadiisa iyo xildhibaanada kale ee maanta halkan nagu qaabilay intaa la sheegayna aan isku afgaranay iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan intaa ku darayaa hadalka waa la dhameeyey xeerarka bani aadamku ama dadku ay dejiyaan waa laba nooc wax shareecada ka hor yimaada iyo wax shareecada waafaqa ama aan khilaaf ahayn xeerka shareecada ka hor yimaada allah ina abuuray baan inoo ogolayn dadka muslimiinta arrintoodu waa wada tashi waxaanu u mahadnaqaynaa ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala dad islaam ay naga dhigay waxaanu u mahadnaqaynaa shirguddoonka golaha wakiilada ee somalilan oo isku dhanoo maanta halkan aanu kulan kula qaadanay oo lagaga wada hadlayay arrintii maalmahan miidiyaha iyo bulshadaba aadka ugu jirtay xeerka kufsiga intaa uu guddoomiyuhu sheegay ayaanu ku heshiinay waxaanu ku heshiinay in inagoo wada jira dib aynu isla akhrino hadday tahay culimo hadday tahay garyaqaanka guud
hadday tahay wasaaradda awqaafta hadday tahay golaha wakiilada dadka ugu qaybsan shuruucda dhammaantiin marka wax kaloo lagu darayaa ma jirto waxaa hadalku ku kooban yahay waxaa laysla gartoo laysla qaatay in dib loo akhriyo culimmada nuqul la siiyo culimmada iyo dhinacyada aan sheegay iyagoo isla jira in si wada jira loo akhriyo oo wixii dhaliil sharciye xagga shareecada ku saabsan si wada jira